marmarka qaar waxaa is leedahay jacaylka dhabta ah waxa uu markaasi ka samaysan yahay buuq iyo dagaal iyo maseer, sababtoo ah sheekada maanta aan idin wado, qisada maanta aan idin wado waxa ay nala aadi doontaa Dubai ama Imaaraadka sida aad u taqaaniinba, oo ay qisadani ka dhacday. taariikh ahaan qisadani waxa ay dhacday 2014 Agost 14keedii. waxaana markaasi qisadan qusaysaa gabar Raashiyaan ah oo ahayd gabar ganacsato ah oo dalka markaasi Imaaraadka ama Dubai ku lahayd businessyo. gabadhani waxa ay markaasi meel cafe shop ah ku baratay wiil Falastiini ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaasheeda sharafta iyo qiimaha leh meel walba oo aad joogtaan, waxaad daawanaysaan Shumac TV iyo qiso. dhanka TikTok-gana waxaad naga daawanaysaan Axmed Usmaan Xasan Axmed Deeqsi. daawadayaal, sheekadani maanta aan idin wado waxa ay markaasi ka dhacday dalka Imaaraadka Carabta, taariikhda markay ahayd 14 Agost 2014. waxa ayna markaasi dhex martay gabar Raashiyaan ah oo ahayd gabar ganacsato ah, aad iyo aadna markaasi u haysatay lacag aad iyo aad u fara badan, oo ahayd qof markaasi qof shaqo. da'deedana waxay jirtay 30 ilaa 33 sano ay u dhaxaysay. marka gabadhani waxa ay baratay ayadoo markaasi meel cafe ah iska joogto, waliba aan kuugu daray 33 jir iska jirtay maahane ma ahayn macnaha qof garoob ah, oo waxa ay ahayd gabar aan weligeed alaheed nin aysan waxba dhaxmarin. jacaylkeeda ugu horeeyna waxa uu noqday ninkan Falastiiniga ah ay kulmi doonaan meesha cafe shop-ka ah ama lagu cabo shaaxa, waliba xilli habeen ah, ayadoo markaasi meesha kaligeed iska fadhido oo jawi iska qaadanayso ayuu wiilkan meeshii soo galay. kadibna kor ayay ka aragtay asna sidoo kale. cabaar ka bacdina waxaa markaasi suurto gashay in uu meeshii ay fadhiso ugu yimaado oo salaamo, kadibna ay kala tagaan. muddo kadib waa ay markaasi isbarteen oo waxay noqdeen saaxiibo iska caadi ah. gabadhiina markaasi si toos ah waxa ay uga heshay wiilka oo maaragtay Falastiiniga ah, jacayl dhab ah ayay u qaaday, waana u sheegtay in ay markaasi jeceshahay. kala duwanaanshaha gabadha iyo wiilka ayaa waxa ay tahay in gabadha ay tahay gabar aad iyo aad maalqabeen u ah oo taajirad ah, wiilkana uu yahay wiil markaasi ahaa shaqaale, inkastoo aan la sheegin meesha uu markaasi ka shaqaynayay iyo cidda uu shaqaynayay intaba, magac ahaan iyo shakhsi ahaanba. laakiin wiilka waxa uu ahaa wiil Falastiini ah oo iska daruufeysan, balse nin ahaan macnaha dee ninka ragga ah meesha laga rabo ahaayo, sida markaasi sheekada lagu sheego ahaa wiil aad iyo aad markaasi isugu toosnaa sida caadiga ah. marka gabadhani waxa ay ka heshay wiilka qaabkiisa, dabeecadiisa iyo dhaqankiisa. jacaylkeedii labada qofoodba macnaha qofka jacaylka sheegtay ayaday naqatay, sababtoo ah ayadaa si waali ah uga heshay. markii ay jeclaatay way u sheegtay inay jeceshahay, waa uuna ka aqbalay. kadibna gabadhu waa Raashiyaan, wiilkuna waa Falastiini. wiilka marka ma uusan u bandhigin gabartii diin iyo wax la mid ah, kaliya macnaha waxaa dhexmaray wada noolaashadaasina waxa ay noqotay in ay muddo aad u fog wada noolaadaan, oo ay noqdaan dad iska wada nooloo dee markaasi wada noolaado nabad kuwaara ay u daaran tahay. markii ay wada noolaayeen marka mar waliba wiilka sanad waliba wuxuu aadi jiray Kuwait, waxa uuna sheegi jiray in markaasi ehelkiisa ay halkaasi degan yihiin. ayadana maalmaha kamid ah kuma aysan dhihin meesha aad aadid aan ku raaco, waa bixi jiray, waa soo laabi jiray, xiriirkoodana sidii iyo si ka wanaagsan u sii fiican jiray, maadaama ayada ay ahayd gabar aad iyo aad lacagley u ah. waxa ay markaasi u iibisay gawaari 3 ilaa 4 ah oo xilligaasi gawaariyada Dubai kuwa ugu shidan macnaha ku jiray. waxa ay ayadana markaasi iibsatay maadaama ay markaan haysato qof ay jeceshahay guri qasri ah.
waxay ka gadatay dalka Imaaraadka Carabta. awal waxay iska deganeed meel oo hotel camal ah, laakiin ugu dambeyn waxa ay degtay guri ayada ee leedahay oo qasri ah. asagana maadaama mar walba oo markaasi reerkiisa aadi jiray oo ugu sheekeyn jiray, waxa ay markaasi siisay lacag aad iyo aad u fara badan oo ay leedahay reerkaaga, maadaama markaan aadoosid waxaan rabaa in aad markaasi u iibiso guri aad u weyn. lacagtii waa uu qaadayay, guryihiina waa uu ku iibsaday, balse sheekada meesha ay markaasi dhanaanka ka naqanayso ama ay aadka uga macaan doonto ayaa isla soo gaarnay daawadayaal. haddii aadan subscribe saarin Shumac TV, subscribe saar. haddii aadan TikTok-ga follow soo dhihin, walaal follow soo dheh. aad iyo aad mahadsantihiin. aan kasii socono. marka gabadhan waxa ay rabtaa in ninkan uu guursado, asagana waxa uu rabaa in uu shafada ka dhuuqo oo iska dhuuqo oo mataqaanaade iskala noolaado. marka waxay bartay qamriga, biyaha in caadi u cabo, si weyn cabtooy weyn ka dhigtay. maalmaha markaasi oo fasaxa oo kale waa ay wada cabi jireen. marka qoftani waa qof macnaha aad iyo aad u aqli badan oo wax badan og. marka waxa ay sameysay investigation, saaxiibadiisa ay baratay. saaxiibadiis markii ay baratay, ninkaana markii hore nin iska daruufeysan oo ahaa, laakiin lacagtii uu ka helay gabadhan raashiyaanka ah waxa ay markaasi ku sameysay isbedel aad iyo aad u weyn. waxa uu markaasi sameystay saaxiibo intuu lahaa in ka badan. waxa uuna bilaabay in uu baari sameeyo, baariyo iska habeenkii baashaalo, mataqaanaad saaxiibadiis isku keeno, gabdho fara badan oo la raaxaysto, jacaylo kale oo markaasi ayada aan ahayn sameysto. marka gabadhii waxay markaasi ka qaaday maseer. ilaa ay hadda ma ogo halka uu markaasi aado iyo maaragtay meeshaasi in uu familku leeyahay, balse kaliya waxa ay ka maseertay hablahan maaragtay uu ku dhex jiro mar walbo. waa marar badan ay weydiisay, warniyahow see wax u wadaa, macnaha jacaylkayga maad si qaldan ugu faa'iidaysanaysaa, inaa isguursano mar walba waa ka meermeeraysaa, see wax u wadaa, see u dhehaysa. markii dambe waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah, wiil markaasi ay ku baratay oo ay saaxiibo ahaayeen oo Siiriyaan ah in ay weydiiso, tiraahdo niyahow saaxiibka maxaa ka qaldan, maxaa ku dhacay, dabeecadiisa wax badan uu iska bedelay. niyahow ninka macnaha maaragtay inaa isguursanaa rabaa, asigana uu ka meermeerooyaa, maxaa sameeyaa? wuxuu dhahay aniga waxaas wax aan ka ogahay ma jirto. marka gabar oo xiriir lahaa oo jacayl markaasi ka dhaxeeyay wiilka Falastiiniga ah iyo markaasi gabadh ayadana Imaaraati ah ama Carab, macnaha coday rabtaa ka iska Carab ah, macnaha waxa dhacday in ay gabadhii isku dhacaan. ilaa ninkii birsan waay, macnaha 2 isbuuc mid waxa inuu ka gudbo rabaa mid kala qabsado oo macnaha iska raaxaysto, maadaama uu qamrigiina aad u cabayo. waxaa dhacda marka gabadh ay kala tageen in ay is arkaan, tiraahdo ninkaas ka waran, marar badan macnaha maaragtay isku keen arkay, asxaabaan hooni dhahay, ruuxa asxaabna ma leeyahay ninkaas asiga waxa naga dhaxeeyay jacayl, haddana waa kala tagnay. in ay saaxiibadiisa raashiyaan tahana waan maqalay, laakiin macnaha inaa saan u qurux badan tahay ma maleynin. laakiin adigoo saan u qurux badan muxuu ku qiyaanayaa? waxay tiri muxuu iga qiyaanay? waxay tiri aniga asiga 2 isbuuc ka hor aan kala tagnay, saaxiibadiisa ahaa jiray, haddana gabar kale oo maaragtay Carab ah oo la socdaa. wuxuuna yiri anigoo Carab ah maxaan macnaha naag raashiyaan ku falayaa? waliba waxaa sii dheeree jiray ninkaas macnaha maaragtay Kuwait waxaa u joogto xaas iyo caruur. hadda dhowna macnaha wuxuu u sheegay inuu guri waaweynka ah oo u soo dhisay, waliba lacagtaasina adiga aasiyada. gabadhii taasi waxa ay markaasi ka dhigtay in ay olida iyo biyaha isku darto, meel ay joogtona ay kala garan weyso.
go-aanne waxay ku gaartay ninkan in ay arrintaasi ka wareysato war cadna ay kala helaan. waxay tiri marka habeenkaasi waxa ay ku ballansanaayeen gabdha Raashiyaanka iyo wiilka Falastiiniyiinta inay baar wada aadaan. ayada intay labisatay ee baarka la iska aaday si ay u soo cabto. soo cabtay asagana dema uusan ogeyn baarka ay jirtay baarka loo iska aaday asxaabtiisu iska raacay waa is soo dhaamiyay. markuu is soo dhaamiyay ninkan waxa uu markaasi rabay inuu xaafadda soo aado waa soo wacday markaasi tiri intee joogtaa meeshaas joogaa xaafadda isugu imaano ee dhahday. waliba sida la sheegay markaasi gabadha Raashiyaanka waxaa ka muuqda caro aad u ballaaran oo waxa ay rabto markaasi inay go'aan rasmi ah wiilkan Falastiiniga ka gaarto. bas cabaarka bacdii ku celisay taleefanka waxaa ka qabtay wiilkii Suuriyaanka oo saaxiibka la ahaa. markaas wuxuu dhahay saaxiibkay wuxuu ii sheegay in aad uga xanaaqsan tahay inuu xaafadda imaadan oo ka cabsanooyaay dumaashiyay macnaha say wax u jiraan arrinta anaga xalinayna. war waxay tiri caawa bur iyo biyo loo kala baxaa ninkan macnaha aniga inuu khiyaanooyo oo dhibaato kale igu wadaa la sheegay. marka waa inaan macnaha maartay arrintan caawa ka shal gaaraa adiga naftirkaaga hadii aad wax ka og tahay ila wadaag. bas waxay marka wiilka Falastiini markuu soo baxay wiilka markaasi Suuriyaanka ayuu waxa uu sheegay in markaasi si hoose oo uga warqabo waxa walbana ay dhici karaan maadaama gacalisidiisa ay Raashiyaan tahay. Raashiyaankana ay wax walba ka suurtadaan dad aad iyo aad hadii qaroodaan aanan isceli karin ay yihiin. marka ayuu dhahay waa Falastiiniga waa soo baxay gurigii ayuu tagay markaasi ay joogtay gabadhii Raashiyaanka oo gacalisidiisa markii ay markaasi meesha isugu tageen labadooda oo wada cabsan waxaa ka dhashay buuqaasina waxa uu sababay in gabadhani ay go'aan ku gaarto in ninkan Falastiiniga ee hantideedii ilaa lacag gaaraysa $500,000 ka badan macnaha maarata ay ku tabayso in ay ka takhalusto. ninkan waa nin ka dhacsanay waa iska jiiftay. markuu jiiftay asagoo hurdaayo intay macnaha soo baxday ay sariirtii uu jiifay intay mid la soo kor istaagtay 4 xabo ilaa 3 xabo waxay ugu dhuftay feeraha. ninkan waa nin markaasi cabsan oo mid lagu bilaabo awood oo isku difaaco ma lahane sidii uu markaasi ku naf baxay. intay soo baxday waxa ay sameysay raashin aad macnaha uga taxadirtay oo aad u qurux badan bariis iyo hilib iyo cabitaan ase intay soo xambaartay meesha maartay qolka qadada intay keentay ee fariisay ee kursiga ku xirxirtay raashinkana hor dhigtay. kadibna waxaa markaasi soo wacay wiilka Falastiiniga taleefankiisa saaxiibkiisa Suuriyaanka taleefanka intay ka qabatay u sheegtay macnaha saaxiibka waxa uu aaday meesha loo badnaa oo waan dilay haddana waxaan rabaa inaan booliska u waco ay tiri gabadha Raashiyaanka kadibna booliskii ayuu wiilka Suuriyaanka waxay ayadana waa ay wacday kadibna booliskii waa ay imaadeen. gabadha Raashiyaanka marka waxa ay ugu sheekaysay wax walba oo dhacay sida u dhacan. waxay sheegtay in ninkan ay isku bartay meel cafe shop in macnaha ay wada sheekayseen in ay ka heshay in ay markaasi wax badan noloshiisa ka bedeshay. markii ay baranayso waxa ay sheegtay inuu ahaanin aan waxba isla heenin oo aanan qadeynin oo aanan quraacanin oo xaaladda markaasi ay ku adag tahay. kadibna noloshiisa ay wax badan ka bedeshay labiskiisa iyo baabuuro fara badan ilaa 3-4 ee u iibisay guri uga gaday macnaha wadankii oo markaasi asaga reerkiisa ay ku dhaqnaayeen ay Kuwait. macnaha waxay tiri aniga hantideeda inaan ku qasaariyay asigana waxa uu sameeyay inuu khiyaano si uusan qof kale u khiyaanin aniga asagana u kala harno. wadada kaliya aan kala harna karna maadaama uu hantideeda qabo ayaa waxa ay noqotay in aan dilo ayay tiri. qisadaasi gabadhii marka waxaa la saaray waa la xiray
gabadhii markaasi booliisku waa ay wadeen oo xabsiga ayay u taxaabeen, maxkamad ayaana la soo saaray. waxa ay qabsatay looyarkiina markaasi marar badan waxa ay isku dayeen in ay racfaan qaadato maadaama ay ku xukumeen dowladda Imaaraadka Carabta 15 sano oo xarig ah. ugu dambeyn gabadhii waxaa lagu xukumay 15 sano oo xarig ah. wiilkii Falastiiniga ahna sidaas asigii iyo adduunyada isku macsalaameyn. marka sheekadan waxaan ka baran karnaa in aanan markaan ummadda Soomaaliyeed aan iska ilaalino in aan la tacaamulno dad aanan anaga nagu jinsi ahayn oo aan Soomaali ahayn. guurka ajaanibta dhibaatada ka dhalato mar waliba waa wax aad iyo aad u fool xun oo ugu dambeyn waxa uu ku soo dhamaadaa meel aanan wanaagsanayn, amba in gabadha aad guursatay caruurta aad isku dhasheen aad waxba ka bedeli weyso diintooda iyo dhaqankooda, ama aad u soo wadi weyso dalkii aad lahayd. intaba waa ay kugu dhici karaan. ama haddii ay gabar tahay in caruurta laga qaato oo ninkii adiga aad guursatay uu dhibaatadaas ku geysto. marka mar waliba guurka waxa uu ku wanaagsan yahay dad ayaga istaqaano inay isguursato wax ka wanaagsan malaha. inta aan kulmi doono qisadan qisa lamid ah waa Axmed Ismaan Xasan Axmed Deeq Socodle. sidaas iyo nabadgelyo.